بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة شرفت الله تسديتهين مو وناكسنتهين. الحمد لله أنا جوه وناكسن هاي إلهي النمعديسة إلهي وحنا كبر يا صدايا سكسي في عام بإذن الله الرحمن. aad iyo aad ayaan idin wada salaamayaa dhammaantiinba walaalaha cusub soo dhawaada walaalihii hore ila joogay idinkana allah idin barakeeyo soo dhawaada sidoo kale ilaahay hadda waxaan weli baaritaan raadin ugu jiraa sida loo sameeyo ciirta gabadh walaashay ah baa marka hadda fideogii hore watan kusoo dhahay yaa iiga caawinaya sida ciirta loo sameeyo gabadh walaala baa marka ii sheegtay si loo sameeyo laakiin iima noqonin weli waan raadinayaa marka sida ciirta loo sameeyo caanaha ciirta la dhaho ee yoogadka laga sameeyo sida loo sameeyo ayaan weli raadinayaa qof kastoo yaqaana waxaan rajeynayaa inuu ila soo wadaago gabadh waxay igu tiri waxaad sameysaa caanaha yoogadka plain yoogadka baa soo qaadaysaa bay tiri waxaa soo qaadaysaa moos adiga waxay tiri intii kugu filan marka 2 xabaan soo qaatay sababta waxaan rabaa inaan qado ka sameeyo kulaylan gallay marka inaan qado ii noqdo marka 2 xabo banaana moosa iyo waxaan soo qaatay strawberry iyo caanihii maaragteen yogurtkii plain yogurtkii oo maaragta baan soo qaatay iyo waxaan ku sameeyaa biyo iyo sonkorta marka ugu dambeysa ayaan korka uga qasaya sidii oo kale qaybtii dhaqaalaha way ku hoos jirtaa waataan dhahay dhalooyinka ha iska tuurinina hadda dhaladaas biyuhu ku jiraan ee dheer waxaan ka samaystay waxaan kusoo gatay tamaandhada yaanyada shiidan baa kusoo gatay ee cuntada lagu kariyo kuwa kalena waa kuwa bahalka jaamka oo batarka rootida la marsado waa ka dhamaatay intaas ayaan maartay dhalooyinkaas baan iyaga idinla wadaagayaa inaad maartay ilaashataan waxa ku beeran kartaa sida matalan waxa ku shuban kartaa biyaha cad aad bay ugu qurux badan yihiin dhalooyinku biyahana waxa wanaagsan marka cabaysid waxay biyuhu kaaga dhex muuqdaan inaad ku cabtid waxa kale oo samaysan kartaa haddaad rabtid inaad ubax iyo wax maartay beeratid aad rabtid inaad biyo ku dhex ridid oo kale uu ku anfacaysa ayadana sidoo kale marka qalabka guriga ka dhex samaysta alaabada kasta markaad gadanaysid marka wax sax gadanaysid ku gado dhalo ku gado si ay maartay ku anfacdo wax badan ugu samaysatid ani xitaa saliida aan samaysto aan aniga maartay guriga u samaysto waa ku shubtaa marka intaas waa qaybtii dhaqaalaha waa qadar yar oo xaysiiso dhaqaalaha bay dhahan wariyayaashu waa kaasa marka dhalooyinkaas dhag furkoodana la iskama tuuro I wish furku inuu iyagana isna dhala ahaan lahaa laakiin waxa alxamdulillah ma xuma marka hadda gabadhii talada ay soo siisay waa kaasa waa sameynayaa bal eega ma soo baxayo bahalkii ma noqonayo ciirtii aan rabay ilaa hadda ma noqonayo marka weli waxaan u baahanahay in ciirta la iga caawiyo sida loo sameeyo inkastoo faa'iido badan aan ka helayo faa'iidadan ka helay waxay tahay dee iyadoo oo samir lagu jiro kulaylo lagu jiro baan mar walba ilaan qof wax raadinaysaan ahay cabitaan maasha Allah baan reerka u sameynaya maasha Allah aad buna ii anfacaa xaqiiqdii sababta kulaylaan ku jirnaa kulaylihii cidi cunto ma cuni karayso marka in cabitaan yaroo jag ah oo maartay waxtarna la iska cabo oo fiican yahay marka gabadha waxay igu tiri marka aniga ilaah amarkiisa de strawberry-ga waa dhanaan yogurtkana waa dhanaan waa ciir marka iskuma soo bixinin bahalkaasna markaan cabayo wuxuu ahaa wuu macaanaa wuuna qaboobaa subxaanallah ilaa hadda maskaxdayda kama baxo marka qof kastoo yaqaana oo yogurtkaas yaqaana sida loo sameeyo ilmaada rayaalow ila soo wadaaga gurmad baan u baahnaa si markaan maartay aniga xitaa caruurteedu guursanayaan maaragtay aan haddii ilaahay yiraahdo aan maaragtay daarooska u sameeyo haddii ilaahay idmo marka ila soo wadaaga intaas iska kaftan aad iyo aad baad wada mahadsantihiin fideogu waana dheeraanayaa wax dheerna ma aha ilaahay qudradiisa wax yacni 7 daqiiqo weeye hadalkiina wuu iga dhamaaday marka aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxaa laga yaabaa sanadka cusub inuu iska bilaabmado waxba dada kama harinin 3 cishaa ka dhiman inaynaan baysarkii intaas baa laga yaabaa qof kasta oo walaala oo maanta nool waxaan kula talin lahaa tala yar oo ah mar walba isxisaabintaan lagu xisaabin isweydii haddii ilaahay fursad kuu siiyo inaad gaadhid sanadka insha Allah isxisaabi isla